Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Soo dhawaada, waxaan bilaabeynaa cashirkii 47. Cashirkan waxaan ku qaadanaynaa shaqal gaab. Shaqal gaabka hore aad soo barateen, laakiin cashirkan waxaan ku qaadanaynaa asiga oo xuruuf yar laga dhigayo. Okay. Qaybtan sare waa shaqal gaabkii oo xarfaha waaweyn ah. Qaybta hoosena waa shaqal gaabkii oo xarfaha yaryar ah. Marka waa a, e, i, o, u. Aan ku celiyo mar kale. A, e, i, o, u. Akhriska waa isla akhriskii, laakiin waxay ku kala gedisan yihiin sida adinkaba aad arkaysaan qoraalka. A'da gebi ahaanba way kala isku mid maahan. E'da sidoo kale isku mid ma ahan. i'da koraa dhibic laga siiyey waana la yareeyey. O'da tii hore aad bay u weyneyd, laakiin midaan yaryarka oo xurufta yaryarka ah way yar tahay. U'da sidaad arkaysaan tan aad u weyn tahay, midda kale far ma lahan, laakiin tan way yar tahay, farna way leedahay xagga hoose. Marka farqiga u dhexeeya inaad fahantid waa muhiim, sababtoo ah waa ku shaqayn doonaa. Marka waa a, e, i, o, u. Waxaan rajeynaa inaad fahanteen. La socda cashirka 48aad. Guulaan idin rajeynaa dhammaantiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.